iyadoo maalmihii u dambeeyay muran uu ka taagnaa masjidka qadiimiga ah ee ku yaala bartamaha magaalada Berbera ee Masjidul Sheikh Saxaab ayaa maanta qoyska Xaaji Yuusuf Iimaan waxay ka hadleen masjidkaasi gacan ku hantiisa inay iyagu xaq u leeyihiin odayaashan oo kamid ah qoyskii iyagu masjidkan dhisay sida ay sheegeen ee waqafka u bixiyay ayaa ka hadlay arrimaha xilligan ka taagan masjidka iyagoo carabka ku dhuftay masjidkan in 90kii sano ee u dambeysay iyagu ay gacanta ku hayeen maamulkiisa waliba ay bixinayeen kharashka maamulka masaajidkaasi ilaahay baa mahad leh waxaanu maanta warbaahinta ugu yeedhnay taariikhdu tahay 22kii bishii 12aad waxaanu ugu yeedhnay warbaahinta arrin aanu qaadan kari weynay oo ah waxaanu ka tirsanay gobolka saaxil magaalada madaxda Berbera masaajid 90 jira oo ilaahay ha u naxariisto uu dhisay Iimaan Guuleed oo taariikhda uu dhisay masaajidka ahayd 1930kii oo uu naadir ka ahaa oo uu dhismaha lahaa oo uu dhulka lahaa oo uu tacabka lahaa oo inankiisu uga dambeeyay Xaaji Yuusuf Iimaan iyo Xaaji Qawdhan Maxamed oo saaxiib iyo shurug ahaa oo masaajidka dhismihiisu taariikhda ahaa oo intii ka dambeysayna sheerku gacanta ku hayay masaajidkaas oo leh waqaf badan oo dhul ah oo suuqa lambarwanka ku jeeda dhul dhisan oo 3 aqala iyo jagooyin bannaan oo laga dhisi karo madaaris waxa dhacday in niman wadaad oo timaweyni ay qabsadeen wadahadal la bilownay wadahadalka markaanu la bilaynay waxa noo bilaabay gobolka saaxil haadihiisa sharciga ah barasaabka maayarka wasaaradda waqaafta Hargeysa oo laga soo diray wasiiro iyo culimo waqaaf oo ka tirsan agaasimaha guud ee waqaafta iyo wasiir ku xigeenka ayaa goob joog ahaa iyo culimo ka tirsan wasaaradda sida daraadeed waxa la doonay markii aanu isqabsanay in aanu ku kala baxno sharciga isla markaa si toos ah waxa ay u diideen hay'adaha sharciga ee gobolka ka hawlgala ilaa barasaabka ilaa maayarka ilaa ciidanka nabadgelyada ilaa wasaaradda waqaafta iyo diinta isla markaa way ay kaceen masaajidkii oo xidhnaa bay jabsadeen way ku jiraan waxaanu idiin sheegaynaa arrintaas arrin u qaado waaya oo gardarro ah in ay tahay waxaanu idiin sheegaynaa wixii halkaa foolxumo iyo dhib ka yimaada inay cidi iska leedahay waxaanu u mahad celinaynaa runtii marka laga hadlo maamulka gobolka wasaaradda waqaafta barasaabka maayarka ciidanka nabadgelyada dhammaan hay'adaha gobolka sharciga ka hawlgala ee gobolka saaxil waanu u mahad celinaynaa wasaaradda waqaaftaba gardarrada cad ee amar diidada cidda lagu sameeyana waa iyaga cidda laga kacay waa iyaga cidda lagu gardiiday waa annaga wixii dhib ka yimaada iyo foolxumo waxa iska leh cidda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله دولة الكلمات حرير جامع شاقي وحوي أرنتن أنا ما أنت تسكو يعني وأول مركي يقول رئيسية وحوي أنا كإلى بحنه أرنك كتاجن مساج كلا شيء صحاب كوي على ما أنت مقالة بربرة مساج كان تاريخ فعوي ويان أنتم مساج سياسي الصناعة يلا أنت مقرر يسائل والصناعة مسؤولية دي أنا جاي نصاري أولاً سو شيء ما تحكي إيمان بوها تبدأ حكي يوسف لحية سياسة ديتا كيبا أنا مسؤولية ده مساجد كاسي يوسو وركتي إلا أنتي كدم بيسير مسؤولية دي سنة قبلي نينك كإمام كأه أما مساجد كشوجة أنا قاسين هنا مارك خرجك أقل ده وحلوقة سوق هذا كرا ده أيام ما تلسين شلون لقوا بحجري مساجد كعين كأها أيضا نقلت شن oo maaragtay aan waxbana laga weydiin
ayaa qolada dawladda maanta wasaarad la yiraahdo meesha la yiraahdo dekadu ay maanta aqam masaajidkii dibisay dhistay dubudhiskiisii ayaa arintani ku timi maamulkii markaa joogay oo markaa maartay hawshan galay annaga waxba nagama weydiin naqshada aanu haysanay dubudhis aan u sameeyaa oo aanu ku tala galay inuu dhowr dabaq masaajidkaas noqdo guriyihiisa waqafkaan madaaris iyo maanta macaamado laga sameeyo mid lama tixgelinin meel yar oo kooban baa la sameeyay hala sameeyay markii aanu hawshii dabeedna ay maartay dhamaadkiisa ay maartay joogto ayaanu anagu hawshii dabeedna ka bilaabanay inaanu maartay la wareegno wixii aanu lahayn mas'uuliyaduna mid weeyaan masaajidka naadir buu leeyahay naadirku waxa weeye qofka ka mas'uulka ee maartay aan mas'uuliyadiisa hayo weeyaan cid allaaliya cid annaga maanta nooga gacan fudud nooga sarreysa ma ay jirin ilaa imikana ma ay jirto waxa weeye mas'uuliyadiisa inaanu iyadoo toos sideeda u la wareegno waxa naadirnimadu leedahay aanu la wareegno markiina la muransiiyey waxaanu shaarkaaga ama go'aaga haddii lagu gala murmo waa laga garbaxaa gar baanu u soo fadhiisanay sidaa maanta la sheegayba gartii nimankii kale ayaa maanta diiday annagoo xeerinayna nabadgelyada waddanka maanta magaalada xeerinayna annagoo ka duulayna islaamnimadu waxay leedahay oo ay tahay maanta isu tanaasuliyo maanta in dadka maaragtay la dhowro oo maanta ummadda la dhowro annagoo ka duulayna inaan wax firaq la yidhaahdo oo maaragtay isqabsado oo diinahan isku qabsada aanay jirin ayaanu annagu maaragtay nabadgelyadii waxaanu u hoggaansanay oonu diyaar u nahay wax allaaliya wixii go'aana ka soo baxa lajnadaa la sameeyey ay ka mid yihiin gobolka maanta madaxda gobolku waa barisaabka waxa weeye maayarka magaalada waxa weeye maanta wasaaradda awqaafta wasiirka maaragtay arrimaha awqaafta iyo diinta oo maanta wasiir ku-xigeenkiisa agaasimaha maaragtay guud iyo isuduwayaasha maanta ama isuduwaha maanta iyo weliba intaa waxa dheer 3 nin ama 4 culimadii waaweyneed maaragtay ahayd qaadiriyada ahayd ee ka mid ahayd wasaaradda awqaafta oo maanta mas'uuliyadeeda leh oo aanay ugu horreynin arrin ay ka garnaqaan kan uu yahay ay maanta intaasoo masaajida horeba ay maanta gartoodii hawshada galeen cid waliba raali ku noqotay waxa halkaa ka soo baxay in maaragtay nimankii kale meesha maraya ay diideen arrinkii oo ay ku gacan saydheen kol arrinku hadduu yahay halkaa annagu inuu intaa halkaasi dhaafo ma doonayno laakiin waxaanu caddaynaynaa waxaan suuqa lala marayo ee la leeyahay firqad war ma jirto waxa weeye nin waliba masaajidada Hargeysa berbera ku yaalay maanta 60kii wixii ka horreeyay mid waliba cid buu ku sultanaa qaar carab ku sultan qaar hindida ahaa mid maaragtay in beela ay maanta ay u samaysnaayeen kani wuxuu ahaa kii mas'uuliyaddii annaga xagga iyaga naga saaray kelmadda Sheekh Isxaaq ee la leeyahay reer Sheekh Isxaaq tii annagu reer Sheekh Isxaaq baan ila kama noomanina waxa weeye odayaashii markaa masaajidka markaa joogay fikirkooda fikir caalami oo ka ballaaran kara inay ku sheegaan masaajid reer hebel ay ku sheegaan uu ka ballaarnaa masaajidku waa masaajidkii maartay lagu qaban jiray maartay marka maanta la soo yimaado mawlid nabiga ahwaash maanta lagu qaban jiray ma aha kulanka diinta lagu yiman jiray ee magaalada dhan la isugu yiman jiray ayuu ahaa waqtiga maartay la xusaayo xusaska la sameeyo la isugu yiman jiray buu ahaa hadduu taa ahaana magacaas loogu bixiyo waxa weeye wax magaalada deganaa ayaa isugu yiman jiray haddii dabeedna maanta la yiraahdo oo maaragtay magacaas uu leeyahay cid kale ma laha dee suurtoobi maysay dhulkiisa annaga lahayn dhagaxiisa annaga lahayn dhiskiisa annaga lahayn qoriga iyo tacabka saaga ku jiray Singapore baa laga keenay annaga maartay keenay waxa weeyaan mas'uuliyadiisa intii dambe annaga haynay wixii ka xumaaday wax walba annaga u hagaajinaynay cid allaaliya cid intii muddada yar dambe nin maartay oo maartay uu hayay maartay maxaa la yiraahdaa tujinayay timooyinkii ayuun bay dabeedna waxa baadu ku waraad malaya daadad moodaay ay isa siyaanay siraahday maxaa maartay imikana waxaan leenahay annagu xaqayga ka tanaasuli mayno cidna uga tanaasuli mayno waxaan u leenahay xaqna waanu doonaynaa bisifa sharciya baanu ku doonaynaa wax deelqaafa oo maartay annagu ma doonayno laakiin hadii la iska lifo nin waliba maartay wuxuu la yimaado ayuu leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida ay ku sheegeen walaalihii iga horreeyay masaajidka taariikhdiisa way ka soo sheekeeyeen aniguna waxaan taabanayaa qodobo yaryar oo ah halkan marka hore dadka gobolka maamula iyo dadka gobolka ka hawlgala iyo barisaabka gobolkaan u mahadnaqaynaa maareeyaha dekada ayaan u mahadnaqaynaa maareeyihii hore dekada dhisay oo isaguna mashruucan bilaabay iyo maareeyaha imika dekada jooga oo isaguna dhammaystiray labaduba way ku khaysan yihiin inkastoo taladiisa annagana aan lagala tashan wasaaradda awqaaftana aan lagala tashan markii wax laga qabanayay
maayarka magaaladu aad ayuu mahadsan yahay taliyaha ciidanka xodda aad ayuu mahadsan yahay taliyaha ciidanka dhulku aad ayuu mahadsan yahay taliyaha qaybtu aad buu mahadsan yahay wasaaradda awqaafta oo hawl gashay iyo wasiirkooda khaliil iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland oo taaka ula socday dhammaantoodba way mahadsan yihiin iyo halkan cidii u joogtay awqaafteena kala qayb gashay waxaan idin sheegayaa halkan anagu dhaqan uma lihin inaan TV-yada ka hadalno amba idaacadaha ka hadalno amba jaraa'idka ka hadalno waxa maanta nagu kalifay oo ugu muhiimsan inay leeyihiin dhinaca haystaamee dhinaca sheeganaya masaajidka mee horta dhinaca sheeganaya ee lihi masaajidka waa annaga inaanu ku garbaxno shareecada islaamkana diyaar ayaan u nahay inaanu meel kasto shareeca islaami taarana inaanu ku garbaxno diyaar ayaan u nahay dawladdu namay waayin iyaga media waxay u sheegeen inaanay cid kale oo dhinac kale soo fadhidaa ma jirtin kalifaada ay kalifeen ba maanta na fadhiisay halkan TV-ga dawladdu way noo ogtahay dadka reer Berbera way noo og yihiin mutacalimiinta reer Berbera way noo og yihiin culimada reer Berbera way noo og yihiin cid kasto ku nool gobolka saaxil anigoo Jamaal Xaaji Qowdhan Maxamed iyo Maxamed Yuusuf Iimaan way og yihiin masaajidkan inaanu abtirsiimo u leenay masjid kasto Berbera joogay abtirsiimo u leeyay taariikh buu leeyay dhaqan buu leeyay hiduu leeyay cid buu galaa annaguna galaa ninka sheeganaya aniga naadira annaga Maxamed Yuusuf Iimaan baa noo naadira halka nin ha soo fadhiyeesiyeen Maxamed Yuusuf Iimaan ku haysto le aniga naadira aniga ha sheegtan masaajidka tima weeyay sheeganin fi'ad kale oo diiniyay sheeganin qabiiliyu sheeganin nin ha soo saareen sheeganay masaajidka nin baan soo saareen annagu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maadaama masaajidda Berbera ku yaalaan maxaa masaajidkan keenay in la isku qabsado oo muran ka yimaado horta masaajidada yimaada ee ka dhisan gobolkan qof buu galaa amba reer buu galaa kan wuxuu galay Sheekh Isxaaq baa loo bixiyay sida Maxamed Yuusuf sheegay oo waalidiinteedu waxay ka roonaadeen inaanay qofna gelin reerna gelin magaca Sheekh Isxaaq bay soo raaceen nimanka meesha soo galay ninkan meesha tukiya oo timala baxayna waxay yiraahdeen waa tima weyn annaga keenay ninka iyagu may keenin annagaana mushaharada siinaynin bishii November ay dhamaatayna annaga mushaharada siinaynin 60 sanadoodna annaga mushaharadiisa bixinaynay 9 sanadoodna annaga bixinaynay mushaharadiisa annaga imaamkiisa keenaynay annaga khadiibkiisa keenaynay annaga gacanta ku haynay masaajidkan gacanta ku haynay ayaa nin tima weyni ka soo dhex baxay uu yiri tima weyn baa masaajidka leh waa inankii aan anagu ilmaadeerka ahayn ee lacagta aanu siinaynin taasi waa mid masaajid la isku khilaafo Soomaaliland ugumay horeynin dunida muslimkana ugumay horeynin Hargeysa ka dhacay khilaafku burcu ka dhacay Berberu ka dhacay waa lagu kala baxay waxa lagu kala baxay shareeca islaamiya culimada maanta naloo soo diray qaadiriyadii kii Berbera lagu kala baxay waa culimadii ka garnaqday kala saartay meediana lama gelinin qabaa'il lama gelinin amuure kalena lama gelinin si edeb leh oo islaamiya oo diiniya oo ixtiraam leh ayaa la geliyay halkan imka waxa la geliyay qabaa'il baa la geliyay nabadgelyadu la tuuraa baa la geliyay annagu qabaa'il la gelin mayno nabadgelyadana tuuri mayno dawladnimadu annaga waxay nagu joogtaa qiimo qaaliya magaalada Berberi waxay nagu joogtaa qiimo qaaliya dhismaha ka taagan annaga leh qaali bay nagu joogtaa dadka jooga qaali bay nagu jooga calanka Soomaaliland qaali buu nagu jooga kuwa nagu haysta Berberaan qaali ku joogin calankan qaali ku joogin nabadaan qaali ku joogin dawladnimada halkaas soo gaadhay baan qaali ku joogin waxa maanta la isla dhaxmaraya waxaanu doonaa ka sameyn doonaa masaajidka waxaanu doonaa Berbera ka yeeli doonaa dawladda oo wada fadhida maanta oo cid ka maqleen oo wasiirku fadhiyo ilaa xog hayaha barisaabku ay shirki ka baxay ay dibadda ka istaageen ayna waxa doontaan yeela oo masaajidkii qasab ku furteen wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh